nin hubaysan ayaa toogasho ku dilay dad badan oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan ciidanka bileyska ee Mareykanka kadib markii weerar uu ku qaaday ninka hubaysani suuq ku yaala gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. weerarkan oo toos looga daawanayay YouTube-ka ayaa bilowday kadib markii nin hubaysan tagay suuqa rasaasna ku furay dadkii goobtaasi ku sugnaa, waxaana goobta mar qura ka dhacday kala carab. inta la xaqiijiyay toogashada uu fuliyay ninkan hubaysan waxa ku geeriyooday 10 qof oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan ciidanka bileyska ee Mareykanka. waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay dhowr qof oo kale oo cisbitaalka la dhigay. ciidamada booliska Mareykanka ayaa markii dambe soo afjaray weerarka ninka hubaysan oo ku qaaday suuqa King Sobeys, waxayna ciidamadu gacanta ku dhigeen ninkan geystay toogashada oo dhaawacan. gudoomiyaha gobolka Colorado ayaa si kulul u cambaareeyay toogashadan ka dhacday suuqa King Sobeys, waxa uuna sheegay inuu murugada la qaybsanayo dadka dhibaatadu soo gaadhay iyo ehelkooda. dalka Mareykanka ayaa si toos ah waxa uga dhacda weeraro ay geystaan dad hubaysani. dowladda ayaana marar badan ku guuldareysatay inay wax ka qabato weeraradan oo ku sii kordhaya gudaha dalka Mareykanka.